kolleega xisbiyada Soomaaliyeed haysto shahaadada koobaad dhammaantiin waxaan leenahay soo dhawaada maanta waxa waaye munaasabad oo qiimo aad iyo aad u leh maadaama aanu joogno waqtigii loo baahnaa in kaalinteena doorkeena aan ka ciyaarno muxuu ahaa doorka siyaasadda maanta waxa waaye maalinta noogu fiicneed aan soo maro jaaniskan maadaama marka hore aan ahayn dad laab duubay aan ahayn xisbiyada in laga saaray kaalintoodii muxuu ahaa siyaasadda maanta waa aad iyo aad ugu faraxsannahay marka hore waxaan qabanay shirka koowaad kana waa kii labaad waxa weeye wax mid u baahan in la soo dhaweeyo dhammaantiina waxaan leeyahay soo dhawaada guddoomiyaasha xisbiga anigoo lagu salaamayo qof walbo magaciisa iyo taajarka ku meesha loogu fadhiyo waa salaamantiina salaan kadib anigu waxaan soo istaagay inaan soo bandhigo inaan ku soo biiray musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya waayo hore hadda korna waa soo tartamay Cabdullaahi Yuusuf aan tartamay haddana waxaan diyaar u ahay inaan noqdo madaxweynihii alternative ee xalka Soomaaliya maadaama waddankan uu kaalin maaragtay uu galay macna meel siyaasad aad iyo aad u liidato oo ah maaragtay xirib jid oo labada dhinacba inay isku haystaan waxaan filayaa inaan u noqdo alternative xalka Soomaaliya madaxweyne dhexaad ah isku wada keeni karo Soomaaliya marka taas awgeeda maanta waxaan ku dhawaaqay anigoo dib ku soo sheegi doono waxyaabo badan oo maaragtay aan ugu talagalay khudbada marka maanta waxaan ku soo keenay waxaan ahay musharax madaxweyne oo alternative xalka Soomaaliya inaan noqdo marka waa idinko dhammaantiinba waxaan leeyahay maadaama nahay beelaha dhexdhexaadka ah sida banaadiriga oo ah qabna aanu dambi ka gelin waxaan jecelahay Soomaaliya oo dhan inay codkooda inuu soo biiriso dhammaantiina waa salaamantii Soomaaliya oo dhan